السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق waxaa la yiraahdaa Muno Cumar Xasan waxaan doonayaa inaan ka hadlo wiilka Soomaaliyeed ee xabsiga ka soo hadlay ee yiri saaxiibkay baan dilay ama saaxiibkay bay gacan iiga dhacday wiilkaasi wuxuu noola hadlay si walaaltinimo ah wuxuu noola hadlay si Soomaalinimo ah wuxuu noola hadlay qaab suugaanaysan gabaybu wax inagu fahamsiiyay Soomaalidana waa tii isu soo gabiyay jirtay ee isu soo geeraari jirtay in allaaliyo intii Soomaalinimo hayso in allaaliyo intii dadnimo iyo damiir iyo ehelnimo ay hayso ehelnimo marka la yahay maaha qabiiladiisa waxa uu ehel u ah qof kasto afka Soomaaliga la wadaaga ama qof kasto oo Soomaaliya ama qof kasto dhig Soomaaliyeed ku yaala ay wiilka walaalayihiin wiilka xabsiga Hargeysa ku jira ee yiri 7 sanadood baan xidhnay labadeedii xaasna way iska kay fureen caruurteedina warumahayo ehel iyo asxaabna waan waayay xabsiga iga caawisay la xalay markaan daawaday maana seexanin ila xalayto waan ooyay aad baan uga calool xumahay aad baan ula qaybsanaya tiiraanyada iyo dhibaatada isagii caruurtiisii reerkiisii iyo saaxiibkii uu jeclaaba ay isku waayeen waxaan doonayaa in Allah hadla salaadiintii uu soo magacaabay Sultan Xasan Sultan Maxamed Cabdiqaadir inuu yiri baan jecel aad salaadiintii uu la hadlay oo dhan waxaan leeyahay loo kaco abti boqor buur madow waxaan leeyahay abti waa wiil Soomaaliyeed waa wiil mustaqbaliya ay wadankan wali u leh waa nin rajo leh waa nin hami leh waa nin aan dambigii uu galay aan inkirsanayn waa nin qirsan oo waliba ninkun inuu saaxiibkii yahay qirsanaa waa Soomaaliya wiilkaynu kacno Soomaaliya wiilku inala hadlay wiil inama dheera wax qarax ku dhintay wax badda ku dhintay wax shil gaari ku dhintay baa la noqday intii kale waa kuwa xabsiyada ku jira darkaysaan hadaba anigu waxaan doonayaa inaan ballan qaado bisha inaan bixiyo mushaharkayga anigu aan qaato aanan $1 kala harin walaalayaal waxaan doonayaa qof aan ugu hagaajiyo lacagtaasi oo wiilka eheladiisa cidii garanaysa anigu ma garanayo numberka videoga ku jiraana walaalayaal ma shaqaynayo waxaan doonayaa inaan ugu horo anigu aan kow ka noqdo wax kale ma awoodo lacag kale ma haysto milyan dheerna ma yihi mushahar baan qaataa mushaharkayga aan bishii qaato waxaan rabaa inaan isaga ugu deeqo waxaan doonayaa inaan lambar lagala xiriiro eheladiisii ama isaga hadii aanu helin cid la xiriirta waliba waxaan leeyahay walaalaad baan kula tiiraanaysanay aad baan kula dareemayaa dhibaatada ka muuqata iyo niyad xumada ka muuqata iyo 7 sano inaad xabsi ku jirto oo 7 sanadood baad weydii cid ku caawisa aniga intii Ilaahay igu og yahay oo tabarteeda waan ku caawinayaa ma doonayo adigoo calool xuno ehel waayay inaad hadana qabrigan calool xumo ku tagto lagu toogto ma jeceli laakiin waxaan leeyahay Soomaalida waxaan leeyahay war $1 xitaa hadaad u kari kartaan war $100 hadaad u kari kartaan war $50 hadaad kari kartaan aan wiilka caawin walaalayaal aan caawin walaalayaal aan u kacno bari hadii la toogto Facebook aad sawiradiisa soo dhigi doontaan oo doonta waa wiilkii hadlayay haduu garab inooga baahan yahay yaa ila caawinaya wiilkaas waa kuma qofka Soomaaliyeed ila caawinaya hawsha ila galaya waxaan u yeedhayaa walaashay idil cadow fanaanadaas ay la caawinaysa iyada ayaan kow soo qabsanaya maadaama fanaaniintu ay ka cod dheer yihiin dadka kale hadda wiilka la caawiyo wiilka loo kaco waan jecelahay meel lagala xiriiro qofkii garanayna inuu ila soo xiriiro ama lambar aan isaga kala hadli karayo qofkii hayla soo hadlo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh